sideen u helay macaamiil badan anigoo adeegsanaya Facebook kaliya haddii aad rabto macaamiil adigoo aan website haysan muuqaalkan ha ka bixin maanta waxaan kuu sheegi doonaa sida aad macaamiil aan ku helay anigoo adeegsanaya kaliya Facebook page ugu horreyn walaal YouTube-ka waxaan kaga hadalnaa horumarinta ganacsiga iyo sida ganacsi online loo sameeyo iyo horumarinta shakhsiyadda haddii aad jeceshahay mowduucyadaas noogu soo biir oo subscribe noo saar muuqaalkana like saar dad badan waxay u maleeyaan in e-commerce uu u baahan yahay website qaali ah laakiin runtu waa tan Facebook kaliya ayaad ku bilaabi kartaa ganacsi online ah dadku inta badan waxay ka fikiraan ama ay yiraahdaan haddii aanan website haysan runtii ganacsi ma bilaabi karo alaabteedu baraha bulshada kama soo muuqan karto waxa arkaysaa qof e-commerce bilaabay ama ganacsi bilaabay oo face loo xayeysiiyay website loo xayeysiiyay oo qoliyo ay yiraahdeen waxaan kuu sameeynaynaa website baan kuu sameeynaynaa oo $500 ama ilaa $300 website loogu sameeyay oo dabcan si fiican u fahmeyn hadhowna wax way runtii sidii uu rabayna u noqon weydo deedna halkaas qofka khasaare uu ka soo gaadho ganacsiga ka niyad jabo marka ganacsi online si aad u bilowdo kaliya waxaad ku bilaabi kartaa Facebook page ma aha cududaar horta website waa ku caawinaya laakiin cududaar aad uga joogi kartaa ma aha Facebook page ayaa kugu filan haddii aad Facebook page kaliya samaysato tan marka aan ku soo gudbinayno runtii waa khibradda iyo waayo aragnimada inta hadda aan ku jirnay online-ka qayb ganacsi oo aan leenahay iyo qaybtan hadda akademiyada oo aan kaga hadalno marka koorsooyin waxbarasho aan ku soo bandhigno marka hore waxaan sameeyay Facebook page ganacsi ayaan marka ugu horeysay samaystay waxaan hubiyay inuu Facebook page-ku ii leeyahay magac sax ah oo la wada fahmi karo ayaan ku qortay waxaan saartay sawir profile oo ka turjumaya waxa aan qabanayo waxaan sidoo kale samaystay cover dambe oo dabcan xirfad leh oo soo jiidasho leh sharaxaad kooban oo alaabta iyo waxaan iibinayo aan ku sharaxayana waa samaystay waa talaabadii koowaad oo aan qaaday marka hore waxaan sameeyay Facebook page ganacsi waxaan hubiyay inuu leeyahay magac cad inaan magac qurux badan baan soo doortay runtii magacu waa meelaha ugu muhiimsan marka aad rabto inaad ganacsiga bilowdo inaad magac fiican aad soo doorataa sawir baan profile baan u samaystay sidoo kale cover sawirka loogada iyo coverka runtii anaa samaystay uma baahan inaad cid u tago oo ilaahdo ii sameeyo kaliya waxaan tagay abka Canva ayaan tagay kaliya waxaan soo samaystay loogada iyo coverkii baan soo samaystay lacag ay gama bixin toos baan u soo samaystay adiguna waa samaysan kartaa haddii aad aqoon sida loogada iyo coverka loo samaysto waxaad ku qortaa YouTube-ka waxaad ku qortaa sidee looga iyo cover loo samaysto dabcan muuqaalada helaysa laga duubay kadib waxaan bilaabay inaan sameeyo boostiyo joogto ah sawirro nadiif ah inaan ku soo gudbiyo koorsooyinka inaan sameeyo qiimo cad oo qiimo marka dadku macquul ah wax ku iibsan karaan inaan sameeyo fariin ficil ah oo dadku ay macnaha in ay ku qasbayso in ay iibsadaan ama koorsadii ama runtii ayna la macaamilaan taasna waa runtii talaabooyinka aan qaadnay talaabo ka mid ah sirta ugu weyn waxay ahayd waxaan ku biirnay Facebook groups khuseeya dabcan Facebook group waxaad helaysaa intaas oo Facebook group oo kala duwan baad helaysaa marka group-yadaas haddii aad ku biirto runtii alaabtaada ayaad ku soo bandhigaysaa adigoo aan xayeysiinayn waxaad iibinaysaa laakiin dadka tusaya problemka iyo waxaan aad hayso si ay dhibaato u xalinayaan qofku markuu ku qanco isaga ka iibsanaya laakiin haddaad ku qasabto tiraahdo shaygan iibso waxa laga yaabaa ka iibsan marka taasina waa taa Facebook groups waa meelaha ugu muhiimsan ee macaamiil laga helo marka qodobkaas inta badan waa dhayalsadaa hadayalsan qodobkaas waa meelaha ugu muhiimsan markaa kadib waxaan isticmaalay Facebook ads waxay Facebook ayaan sameeyay lacag yar ayaan wax ku bilaabay anigoo doortay dadka saxda ah rabo dadkee ayaan doonaya alaabtina iga iibsadaan dabcan koorsooyinka iga iibsadaan dadee ayaa koorsooyinka inta badan iibsata meesha saxda ah ama meelaha ugu fiican ee dadka online-ka ay fahansan yihiin ay wax ku iibsadaan runtii talaabadaasna waa talaabooyinka runtii naga saaciday inaan macaamiil badan helno maxaa iiga shaqeeyay marka intaasoo talaabo ah markaan sameynay waxa iga shaqeeyay waxaan helay jawaab celin degdeg ah dabcan Facebook page markaad samaysato dadkii alaabta u soo bandhigto isla markiiba dadku kula soo xiriirayaan waa kuureysanayaan si alaabta ay u ogaadaan qiimaheeda oo uga qanciso qofka haddii ku qancana waa ka iibsanaya sidoo kale hadal ixtiraam leh oo dadka aad iyo goor aad barataa runtii dad kula macaamilayo way maanta waxaad haysaa deesan aysan ka helin biri ka maalin wixii aad keentay inay ka iibsadaan bay u badan tahay marka hadal ixtiraam leh waa kala kulmaysaa sidoo kale waxa muhiim ah inta aad ku jirto waxaad iibinaysa inaad waxaad haysana ka run sheegto oo aad been ka sheegin waxyaabaha ugu muhiimsan ee guusha keena intaas marka waa talaabooyinka aan qaadnay kaliya anagu wax ku xayeysiinayna Facebook page
kaliya anagoo Facebook page wax ku iibinayno oo aanan website lahayn ardada inta ugu badan waxaan ku siinaa koorsada marka Telegram inay ku qaataan meeshii aan website sababta dadku ama Soomaalidu inteena badan website ma fahansana qofka aad bay ugu adkaanaysaa laakiin Telegram qofku inuu samaysto casharadii ku qaato dabcan qofka WhatsApp ka yaqaana waa u fududahay marka inuu isagana u yaqaano marka hadii la yiraahdo website bulshada waxay kala noqonaysaa kala fuquuq oo qofka kaliya wax fahmaya ama teknoolajiyada fahmaya baa la jaan qaadi kara taasina runtii waa waxyaabaha muhiimka haddii aad rabto inaad bilowdo e-commerce adigoo website hayn Facebook waa meesha ugu fudud aad ka bilaabi karto marka waxa muhiim ah arday badan baan soo weydiistay macallin ganacsi ma bilaabi kara anoo website lahayn ganacsi ma bilaabi kara anoo meel aan alaabta ku iibiyo aan haysan haa waad bilaabi kartaa kaliya Facebook page kaaga ayaad ku bilaabi kartaa inaad Facebook page samaysato qurux badan logo u samaysato cover u samaysato logo barto sumcadda aad dhisto gurbiyo aad ku biirto dadka alaabta aad soo bandhigto dadka alaabta aad ku qanciso xayisiin aad samaysato dadka aad si fiican ugu jawaabto dadka kula soo xiriir nambaradooda aad save garaysato waxaas oo waxay ku keenayaan inaad runtii guul fiican aad gaarto marka halkaas waxaan rajaynaynaa in qof kasta uu fahmo kaliya in uu Facebook page kaliya soo isticmaalay inuu ganacsi bilaabi karo nooc walba uu yahay ama koorsooyin ha noqdaan ama ganacsi marka e-commerce ha noqdaan walaal ugu dambeyn waxaan ku diyaarinay koorso e-commerce oo lagu baranayo sida Alibaba iyo Shein looga soo adeegto iyo sida alaabta looga soo iibsado dabcan baraha bulshada loogu xayeysiin qurux badan oo loo dhisto haddii aad jeceshahay inaad koorsada qaadato oo qiimo aad u jaban runtii nagala soo xiriir numberka WhatsApp-ka ee yaala description-ka ama qoraalka muuqaalka ka soo muuqanaya aad aad waa mahadsantiin haddii aad wuxuu ka heshay fadlan muuqaalka like noo saar like meel fog bay gaarsiinaa si dhalinyaro badan ay uga faa'iideystaan sidoo kale playlistiga e-commerce ay ku qoran tahay waxaad ka helaysaa muuqaalo badan oo ganacsiga online ku saabsan oo runtii aad u fara badan oo haddii aad daawato runtii wax badan ka caawinaya aad aad waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.